عيد محاواي عباس عبد الله معلم oo chairmankii Ajurang National Council maxaan rabaa inaan ogeysiya dadweynaha reer Wajeer in saddex maalin kulan aan qabanay Ajurang National Council iyo xubinta la dhahaa Ajurang Council of Elders aan ka tashanayni xubintii oo Ajurang ay ka qaadan lahayd doorashada soo socota talada muddo dheer ay soo socotay annagoo fiirinayna dantii Ajurang iyo dantii reer Wajeer marka waa tashanay shan shiraan qabanay shirarkii alxamdulillah waa ku guuleysanay waa noo soo dhamaatay go'aan yaan soo gaarnay maanta oo taariikhda ay tahay taariikh 14 bisha labaad 2022 go'aan adag yaa ka soo baxay resolution Ajurang National Council iyo Ajurang Council of Elders go'aankaas maxaa tangaazayna doono patronkii ANC iyo ACE Honorable Ahmed Abdisalaan MP Wajir North yaa daadahaynay shirka oo patronka asagaan tangaazayna doona go'aankii Ajurang soo gaaray taladan muddo dheer ayay soo socotay uga dambeys 3 bari oo maanta ay ku 3 tahay ayaan u fadhinay go'aankii uga dambeeyay oon gaarnay ayaan idin soo bandhigaynaa go'aankana waa go'aan aan ku idilna waa go'aan afkii beesha Ajurang waxaan ku heshiinay inaan u tartanno nafaaska senataga Wajir County iyo nafaaska women rep Wajir County sidaad ogeedeen dooda ka sacad waxay ahayd nafaaska aan u tartamayno ma senataba ma si waa governor Soomaalida waxay leedahay cad burcad ninba afkiisaas la rabaa Soomahan tii awgeed burcadiina ninba afkiisaas la rabaa tii awgeed aad beesha Ajurang indhaha uga taagtay nafaaskii governaga laakiin haddana markii la fiiriyay danahii badnaay odayaashan ay sheegeen waa danta beesha Ajurang iyo danta reer Wajeerba waxaan isku afgaranay nafaaska senataga haddaba cidda Ajurang ay haysato iyo nafaaska women rep inaan u tartanno waxaana la sameeyni doonaa partnership ciidaha kale oo Soomaalida ah oo countiga Wajeer degan Wajir West ha deganaato Wajir East ha deganaato ama Wajir South ha deganaato partnership ayaan la sameynaynaa siyaasad aqaani jirteen ma aragtaa line up wax la dhahaa ay qabtaa Soomaha arrimihii line up ka ma dhinacaanan aadna ma si dhinacaanan aadna waa hool noo dambayso haddana aan ka fariisan doono go'aan aan ka gaari doono hadda maanta waxa aan ku heshiinay waa nafaasiyihii cidda u tartami lahayd waana nafaaska senataga iyo nafaaska women rep Wajir County waxa ANC iyo ACE ayaa application qaadi doona dadkii nafaasyahaas u tartamay application ka qaadi doona labada qof oo nafaaska u tartami kan senataga iyo kan women repna insha Allah waan ku heshiin doonaa waana adin soo bandhigi doonaa laakiin maanta waxaan taaganaa inaan nafaasihii lagu heshiiyo hadal ka dambeeyana aasan jirin waa Yusuf Ibrahim waxaan ahay chairmanka ACE Ajurang Council of Elders sidoo chairmanka ANC bi sheegay beesha way fariisatay Ajurang sida la sheegay shan fadhiyaan lahayn fadhigii markuu dhamaado haddana beesha ilaa gudaha hoosaan ugu noqonaynay waa la soo tuuraa maaragtay
wixii jirjiro hoose ayaa maaragtay la soo dhammaynayay alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxaan gaarnay go-aankii ugu dambeeyey ayada oo ajuuraanka uu fiirinayo waxay fiiriyeen sida la sheegay danta tolka iyo waxaa la fiiriyey danta countiga Wajeer Soomaalida ku nool oo dhan oo cirifyada daafaha countiga ku nool marka sida la ajligeed beesha go'aan bay qaadatay go'aan buuxay qaadatay oo nus ahayn oo ma aragtay laga warqaba inta ay beesha degta kulli oo Kenya laga warqaba iyadoo kalsooni buuxda meesha iyada go'aankaas lagu gaaray marka sida la ajligeed go'aanka asaga waxa noo go'aamin doona sidoo chairmanka horeba sheegay mudanaha waqooyiga Wajeer Axmey Cabdisalaam isaga ayaa patron ka ah isaga af ajuuraan ku hadlaya marka ana intaasaan ku soo gaabinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh